inala wadaagay isla markaana muujiyay wadaniyadooda iyo waliba sida ay u arkaan qadiyada maanta oo kale maalin la kala harama runtiina waa maalin markaasi waxa la difaacayana maaha wax shakhsi gaar ah leeyahay iyo wax xukuumad gaar ah leedahay iyo wax magaalo gaar ah leedahay waa wax wiilkaaga wiilkii iyo adiga iyo wiilkaaga wiilku sii dhalo ku markaasi ku saameynaya oo runtii ku saameynaya waana sax ee dawladda Kenya iyo inagu waxay u nahay dad yani wax badan ka dhaxeeyaan waa sax inaan u baahnayn haba yaraatay wax xumaan iyo colaada laakiin xuquuqdeena inaad difaacano isla markaana aynu dadkeena si baahsan waxyaalahan caadfadaysa filboodnimada ka markaasi duwan cuntamayana aynu sheegno waa arin aynu xaq u leenahay isla markaana waa civil rights keena markaasi aynu leenahay waana xuquuq aynu leenahay aan ku noqdo marka falaqayntii arinta marka isweydiinta leh waxa weeye arinta Kenya garanay Kenya inay ku day rabto isla markaana ay doonayso inay qaniimada dhulkan iyo waxan ay ka bedesho iyo qaabka ay doonayso inay wax u calaamadsato ama badan loo calaamadiyo inay doonayso qaadi aad uga duwan isla markaana ay meersatoba dhul ka tirsan badda ama qaybo ka tirsan xeebaheena oo ay ka faa'iideysato isla markaana ay doonayso in ay joobato marka maxaa inala gudboon waxa ugu horeeya horta inala gudboon waxa weeye shacabka Soomaaliyeed in ay marka oreysa iyagu ay horta feejignaadaan heegan galaan taas waa qodob si guud shacabka Soomaaliyeed inta la gudboon marka soo koob dawladda Soomaaliyeed waxa la gudboon runtii waxaan shacabka oreysiinayaa maanta shacabka Soomaaliyeed wax weyn ba arinta ka qaban karaan hadii dawladdu barnaamij fiican la timaado dawladda Soomaaliyeed waxa la gudboon dawladda Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxa la gudboon ee ugu horeysa inay ciidankii badda ee Soomaaliya xoog saarto markaana qalab doonyo dheereeya iyo maraakiib sidii lagu heli lahaa ay barnaamij iyo sanduuq gaar ah u sameeyso isla markaana ay unit guddi gaar ah oo arintaasi ka faa'iideysta heerkulka dadka shacabka maanta Soomaaliyeed ay u sameeyso sanduuqna looga furo baraha bangiyada isla markaana ciidankaasi sida ugu dhaqsaha badan loo xareeyo saraakiisha Soomaaliyeed badda wax ka yaqaanay loo waco isla markaana degdeg loo tababaro ciidamada Soomaaliyeed kuwa hadirta jirana la baritaaro isla markaana horta bal xuduudeena iyo badaheena lagu safo aynu iibsano ugu yaraan la iibsado 3-400 oo doonyood oo dheereeya hadayna maanta oo dhan kormarno nabarka oo la yiraahdo saas ay la tahay maaha yaani waxyaalaha hadeerto oo kale maanta oo kale waxay noo taray waxa weeye horta bal in badaha ama badweynteena lagu arko ciidankii Soomaaliyeed doonyo calanka Soomaaliya ka babanayo oo saa u yaacaya burcadbadeedii Soomaaliyeed ee doonyaha dheereeya iibsan jiray dawladdu kama taageera sidoo kalena waxaan hubaa hadii maanta dawladda Soomaaliyeed ay qurbo joog iyo guda joogteeda ay ugu baaqdo in maanta ciidankii badda ee Soomaaliyeed oo qorshe dhow oo degdeg ah oo quick plan ah ay samaysato oo ay yiraahdaan okay 1500 oo askari aanu degdeg u xareeno oo u baahan 100 doonyood oo midiiba ay intaas tahay ayaan u baahana xataa waxa diyaar u ah inaynu yaani ka qayb qaadano oo aynu yaani barnaamijkaas uu noqdo barnaamij aynu baahino oo maanta maxay tahay dalkeena isku garab taagno practically wax uga qabano ficlan yaani aynu wax uga geysano ayaa la gudboon dawladda Soomaaliyeed laakiin had cidna kuma xishmeenaso inta aad marba waraaq lagu soo qorayo waxaana feerahaagana laga garanaya dhangadoodu inay qaadanayso iyo in kale waana taa meesha ilaaladu ka socota marka waxaan dhihi lahaa in la helo 2,000 oo askari oo degdeg ah oo hadda ka hawlgala horta xeebaha isla markaana wareega oo muujiyo horta wadankan uu wadan sovereignty leeyahay oo ciidan dal aan sovereignty-guna waa questionable yani waxa la isweydiin karo hadii aana dalkaagu uusan haysan ciidan badaada iyo cirkaaga iyo dhulkaaga midna ilaaliya kolka ciidamada loogu baahida badan yahay ayay kamid yihiin horay dhibaatooyinka dhinaca kalluumaysiga sharci darrada dhibaatooyinka dhinaca sida sunta iyo balaayada lagu guduugayo xeebaheena iyo badeena iyo shabaagta jilaafashada arxan darrada ah ee dalalku ay sameeyeen barnaamijkii caan baxay aynu kaga waranay xog ururintaha aynu ku sameeynay iyo kumanaan kun oo dhibaatooyin oo kale ayaa ku xeeran badeena xataa ay kamid tahay inaynu inagu kalluumaysatadeena lafteedu aysan lahayn skillski ama yani aysan lahayn yani khibradii ay sida maartay ay u kalluumaysan lahaayeen si salmi ah si markaasi oo laga yaabo inaysan wax xumeeyaba islahayn qaabka ay u kalluumaysanayaan intaas tahay ama qalabka isticmaalayaan uu liito ama khibradoodu ay tahay mid aad iyo aad daciif ah kolka waxa dawladda la gudboon in ay samaysato qorshe 40
ilaa 25 maalmood gudahooda oo runtii arintaas waana lagu sameyn karaa maxay tahay Soomaalida maanta dal iyo dabadba Soomaalidu waa dhaqaalahooda aan organize garaysnayn oo runtii abaabuleyn laakiin Soomaalidu way ladan yihiin dad inta ka liita oo inaga tabar yar oo inaga taag yar oo inaga aqoon yar oo inaga dhaqaale yar ayaa sameeya dhaqaale ururin iyo waliba sameeya in dalkooda kulkan oo kale isbartaagan laakiin hadda maanta oo dhan aad qof Soomaaliya ka daba hadasho oo qof Soomaaliya hadal uu soo jeediyay aad xumaan ka dhaxbaadho ama war been abuur oo fake news aad maanta oo dhan faafiso taasoo hilma dalkaagana practically xumaad qaban qofka dalkiisa doonaya maanta inuu wax la qabto way dawladda Soomaaliya maanta inaynu ugu baaqno inay ciidankii badda ee Soomaaliyeed hawgeliso oo qalabayso qalabkaana inaga jeebkeena inuu ka bixino hadaynu Soomaali nahay oo aynu ka qayb qaadano si loo sugo amaanka badaheedna loona sugo at least loo sameeyo unug ciidan ah oo xeebaha wareega oo aynu qalabkoodii dhareed iyo koodii yani qalabka ay u baahnaayeen iyo waxyaalihii qabowga ay ka xidhan lahaayeen intay badda joogaan aynu balan qaadno dawladuna mushaar kaliya bixiso shacabka Soomaaliyeed qalabaynta ay bixiyaan taas wasaaradda yani arintan khusayso ayaa la imaan karta inaguna waxaana hubaa shacabka Soomaaliyeed in ay taasoo kale ku fiican yihiin shacabka Soomaaliyeed contributionka aad bay ugu fiican yihiin oo in wax la istaro Soomaalidu waa isku nool Soomaalidu way taqaana in wax la istaro oo Soomaalidu waxyaalo kale oo ka xun bay wax ku bixiyaan dagaal qabiil iyo iibs iyo colaad dad kale cunfi kale iyo dad kale iyo jabhado ayaa dhaqaale lagu bixi jiray ma waxa dhaqaale lagu bixi waayay badda intaas leega inaga dhaxaysa yaa ku diidaya maanta dad lug haya ka timid ama aad saylax ka timid ama aad ka timid Baraawe inaad saylax ka kulumaysato qof ku diidaya ma jiro qof maanta ku oranaya yani maxaa meeshan kalluunkan uga daban ma jiro laakiin nin kale wala weydiinaya dadka deegaanka oo dhan isugu soo baxaya waxa loo yahay ninkan muxuu meesha ka kulumaysanay waa hanti aynu wada leenahay waana hanti rasmiga ee runtii maguraanka ee EPN ugu galadaystay kolka taas waa waxa Soomaalida la gudboon dawladeedana waxa laga rabaa qorshaheedii Soomaalida waxa laga rabaa hiilkeedii iyo waxqabadkeedii ficlan qodobka kale ee runtii dhinaca diblomaasiyadda marka la eego dawladda Soomaaliya waa inay sii wadaa arrimaha xiriirka diblomaasiyadda oo maartay ay wadiiqooyinka dhinaca diblomaasiyadda hore wasaaradda arrimaha dibadda ay u ballan qaaday ee laba jibaarta wasaaradda arrimaha dibadda waa inay kor u sii qaadaa xiriirka ay la leedahay dalalka saameynta ku leh qadiyada sidoo kale dawladda Kenya AMISOM bay ku jirtaa oo ciidamada AMISOM bay ka mid tahay midowga Afrika ayay ku jirtaa IGAD ayay ka mid tahay dalalka carabta ayay cilaaqad wanaagsan la leedahay sidoo kale dalalka reer galbeedka ayay cilaaqad la leedahay ayadana cilaaqad la'aan iyo taxaaluf la'aan tan oo kale loogama dabaasho deganaan iyo khubro iyo la talin dhinaca diblomaasiyadda ah oo dad capacity-giina oo leh dhinaca maaragtay ii sheegeen wax qorista iyo waliba cilaaqaadka iyo wax loo yaqaano in arintan la daba galo oo runtii si xoogan dawladda Kenya loo tuso gardarrada cad iyo Maakistaanka ay iska maagtay dawladda dalka Soomaaliya isla markaana waxa loo yaqaano soo boodo go'aameed ay ku samaysay oo runtii aan u qalmin in ay dadka Soomaaliyeed uma qalmaan in saa loola dhaqmo dawladda Soomaaliyeedna saa in loola dhaqmo runtii waa uma qalan sidoo kale waxa dawladda Soomaaliyeed muhiim ah oo runtii ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay tusno si caad fadaysan dawladda ilaahay hadeerto uma hadal oo dawladdu talaqdoon hadalkeedii ma noqon oo runtii hadalka waxa halka ka muuqda dawladdu inay aad xukuumadda waliba golaha fulinta madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo ra'iisul arinta aad bay isugu xiran yihiin runtii waxaad moodaa in sida ay yani procedure-ka iyo maartay step by step-ka ay marayaan ay tahay habka lagu yaqaan dawlad kala damayn leh waana arintaasna bogaadin ayay mudanta wixii wanaagsan dawladdu waan ku bogaadinayna wixii ay qalluuciyaana way la toosinayna cid malaa'iga iyo cid kor looga soo waxyooda ma jiro nabi maxamedna waa tagay naxariis nabadgelyo kursi Allah yeelay marka dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin dawladdeena la talay karay dawladda yani aqligu qof walba in buu leeyahay aqoontana qof walba in buu leeyahay haddii si wanaagsan loo isticmaalo dhamaantiin waan isku wada baahan runtiina waa la isla celcelin karaa kolka dawladdu sida ay arintaas u maamushay so far so good baa loo karaa waa aad iyo aad bay ilaa hadeerto u wanaagsan tahay waynu ku bogaadinaynaa waynu ku garab taaganahay waynu ku hiilinayna marka arinta kale Kenya hadaba dalka Kenya oo daawadayaasheena qaarkood ay Soomaali Kenyanis badan ay joogan oo xildhibaano aynu ognahay in daawadaan horta marka oraysa laba u kala qaado dadka Kenyaanka ah ee Soomaali Kenyaanka ah ee dhalashada waddankaasi ka haysta iyo dadka xilalka haya ee Kenyaanka horta dadka xilalka haya ee mas'uuliyiinta ee madaxda ah magaca Soomaaliyeed runtii dhulkan Soomaaliyeed iyo dhiigga Soomaaliyeed oo diiwaan gashan dalka Kenya waxa la gudboon arintan inay wax ka qabtaan oo arintan ay dhaxdhaxaadin iyo isku soo dhaweyn labada dal dhinacna cidna
dan uguma jirto kala go-an iyo isdilkan iyo in xarkaha la kala goosto kolka ayaga waxaa saaran mas-uuliyad gaara oo aan saarnayn qolada dowladda Kenya ee dadka kala ah isla markaana aan saarnayn dadka yani iyo dowladda Kenya ee xalay Soomaaliya joogta waayo idinku labadii qoloba waa tihiin laakiin anagu dadka kale hal uun way dhinac kolka idinka waxa idila gudboon in aad maanta mas'uuliyadiina iyo saamayntiina aad la timaadaan aad soo hadashaan maxay isku timaadaan kadina aad propose gareysaan bal arinta inay dhaxaysan oo Kenya way khaldan tahay aad qabataan waliba oo Kenya way xadgudbaysaa aad u sheegtaan in xadgudubka joogto oo Kenya dan uguma jirto in ay Soomaalida iyo dadkan Kenyaanka ay isku dhangadayso labada shacab ee walaalaha in cadaawad la dhaxdhigo uma baahna waa inaad arintaas aad mas'uuliyadda qaadataan waa inaad garataan mas'uuliyadda idinka saaran ee gaar ahaan waayo lafaha iyo dhiiga u dhaxeeya ayaa tiin dadkan kolka bal sida kale baa la isugu yimaado warmaha kale qotada dheer ee aanan wali ka samrin baaba noo harsan oo idinka laftiinaanu idin baahannahay oo aaminsannahay inaad xaq daralka ku joogtaan balse horta taa hal isla gaadhay tan hadeerto cusub waxa laga qabto isla markaana cilaaqaadka labada dal iyo labada dad inaad badbaadisaan ayaad xaq u leedahay dadka kale ee Kenyan Soomaaliga waxa loo baahan yahay baraha bulshada kolka ay timaado in ay ka hadlaan arinta xaqaanta isla markaana raydka ay ka hadlaan anigoo aan lahayn inay muujiyaan inaysan Kenyan ahayn no laakiinse waaba waajib wana sunna inaad walaalka mar walba qabato markuu khaldan yahay inaad u hiliso marka uu laga khaldan yahayna yani aad u hiliso labada jeerba marna xaq ugu hiliso marna xaq aad ku duudo oo aad tusto kolka dadkan waxa loo baahan yahay dadkan Soomaalida ah ee aad wax u bartay ee Soomaali Kenyanka runtii loo karo waxay la falgali karaan dadkan reer Kenya inay baraha bulshada ee luqadda Swahiliga ama Kiswahiliga iyo luqadda Englishka labadaba ay runtii ay fahansiiyaan dadkan Kenyanka ah ee dowladda Kenya ay wax ku qafishay inay arrintu sidan ahayn arrintu macluumaadka saxda ah inaad la wadaagtaan xaq baad u leedihiin idinkoo hoga tusaaleynaya isla markaana tusaya sida ay muhiim u tahay sidoo kale inaad ku tirtirsiisaan madaxdiina aad soo doorataan xildhibaanada ay kamid yihiin wasiirada sidoo kale ay kamid yihiin mas'uuliyiinta kale ee dalka Kenya ku dhex jira ee Soomaalida inaad la wadaagtaan oo aad tiraahdaan yani sidan maaha sax maaha maarta ii sheegeen iyo si sawa yani waxa weeye waxa la oran karaa inaysan sidan sax ahayn inaad tustaan oo aad ku hogaamisaan yani in ay dad wax akhristay ayaa tihiin oo runtii wax fahansan in arrimahaas aad la wadaagtaan oo aad kaashataan isla markaana doorka maanta aad qaadataan ay taa noqoto ugu dambeyntii dawladda qiimaha leh in faalaynta wararka inaad si degan loo faaleeyo isla markaana xoguhu ay noqdaan xogo balance ah isla markaana isku dheelitiran waa aad iyo aad bay muhiim u tahay runtiina dawladda dalkaasi Kenya waxa kaliya arintan hadii ay sii socoto dhala karta waxa weeye cawaaqib xumo labada dhinacba gaadho qodobkan raba inaan ku afmeero intaan dadka ku wareejin iyaguna araahdoodii iyo afkaar aad iyo aad wanaagsan xabaarsan waliba qaybta dambe aan qodobkaas ku afmeere dowladda Kenya arintan xasaradan haday sii socoto dhibaatooyin weyn baa dhala kara oo runtii waxa dhala kara buuq siyaasadeed baa dhala kara buuq kala dhala kara arinta kale ee muhiimka ee xusuusta mudan waxa weeye maamul goboleedadii ilaa hadeerto so far arinta kamay hadal arinta waa laba maadamido oo isweydiin mudan maamul goboleedadii ma arintii siyaasadda arrimaha dibadda ka baxeen mise hamrasho Kenya ayaa ku jirto Kenya ay u hamranayaan kulli waa labada midun laakiin ta hore u badi tadambe inay Kenya u hamranayaan u badi anigu kulli igu soo gaarayaan qaarkoodna cilaaqad u yeelayeen kuwa kalena malaha waxay isleeyihiin dawladdan iskuma sanbanaaridin laakiin waxa la ilaalinayaa dawladda ma waxa la ilaalinayaa kooxda ma waxa la ilaalinayaa baarlamaanka ma waxa la ilaalinayaa Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma تاين استفهم واي وحلا إلى لنا وقرن كحدودها هي هنتدا يعني مصيرات أمتن تاين يسلفها نواي